السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadweynaha na daawanaya ee Soomaaliyeed waxaad ku soo dhawaataan telefishinkan iyo barnaamijkan oo ah barnaamij cusub waxaanu ka daawan doontaan isbuuc walba hadii Ilaahay idmo magaalada aad joogtaan ama haday noqoto St Cloud ama Minneapolis barnaamijkan waa barnaamijkii ugu horeeyay oo xagga TV-yada ah oo laga soo daayo TV ahaan magaalada St Cloud ayaan waxaan ugu bishaareynaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee degan magaalada St Cloud annagoo u sameeynay barnaamij saxaafadeed oo ay kula xiriiraan bulshada ayaga gudahooduna ay ku xiriiraan waxaa maanta igu marti ah studio-gan St Cloud Somali TV nin aanu macrifanahay kana mid ah dadyoga degan magaalada St Cloud Ahmed Cabdulle waxa uu arday uu ka yahay jaamacadda la yiraahdo St John's waxaanu ka mid yahay dadka magaalada degan haddana in muddo deganaa Ahmed ayaa waxaan doonayaa marka ugu horeyso inaan maanta aan kala sheekaysto waxyaalo badan oo ku saabsan magaalada magaaladan waxaa degan dad fara badan oo Soomaaliyeed Ahmed Cabdulle marka ugu horeyso ku soo dhaw barnaamijkan waa mahadsantahay Ahmed Cabdi marka labaad waxaan rabaa bal inaan ka wareysto inkastoo aniga naftigayga aan ka mid ahay dadka magaalada degan bal waxaad iga sheekaysaa ama aad uga sheekaysaa dadka magaaladan ku nool bal iga sheekay taariikhda magaaladan dadka Soomaalida goormay soo degeen inta la yaqaano saacadada numberka dadka magaalada degan meeqa lagu qiyaasaa kulli waxa la ii sheegay 2000 inay ahayd markii ugu horeysay dadka ay soo degeen bal iiga waran magaalada guud ahaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ومحسنتها أحمد مرتقات كاتو مرتقاتي برنامج كان أتسمي سي أدو طرق الشيء سوامالي سين كلاود إن أي كجبرته وحيالها كدع مجال ما يكون قبضته مجال سين كلاود وبرنامج أدو قيمة بدن وأتكم محسنتها سمين تيسه يحرقك على قيباتي طلبات أحمد واحد ويدي سوامالي قرب من مجال تاريخي ذيك السودجين والله أنا ضدي كذلك يمد بانها لكن قياستي وحلا شيء إلى لبدي يكون ضد فربضان ومارشال مركي كمبانية دي الحري كسو جوري إنه يجوه الريان ضد كي أساسين كسو ضد بدن كسيه الريان ضد يرنا كسيه الريان معنا المجال هذا وحلا شيء إنه آد وقبضنا دبكة حتى ضد كي يجوه الريان وحي شيء قاركود عن ورستي إنه حتى جريه اللي كريم ونباتها كمتين شقادي كمتين مركا الحمد لله رب العالمين وهذا وجبسدين Soomaalidu qiyaastii hadda waxa lagu qiyaasaa ilaa adu 6 ilaa 10 kun inta u dhaxaysa qiyaasaadkana wax la hubo maaha marmarka qaar kood in ka yiri baad leedahay marmarna waa ka badan yihiin baad leedahay Soomaalidu ma iska reer guuraayo marba meeshii shaqo ka jirtay aadaan laakiin waxyaalaha lagu qiyaasi karo waxa kamid ah maalmaha ciidda markay isku soo baxaan oo kale ya qiyaasti laga qiyaasi karaa laakiin alxamdulillah hadda tirakoob baa socda tirakoobkaas un baa lagu ogaan doonaa tirada dhabta ee Soomaalida ee degan magaalada marka waa muhiim inay ka qayb qaataan tirakoobka oo inta qof oo hadba guri walba degan ay sheegaan si loo ogaado inta tiradooda xaqiiqada ay tahay okay aad baan u fahmay waxaan malaynayaa inaad leedahay lama yaqaan dadka Soomaalida magaalada hadda degan nabrahan laakiin tirakoobkan soo socda ayaa lagu ogaan karaa bal numberka magaalada Soomaalida ka degan waxaa jirta waxyaalo fara badan baa magaalada ka jira magaalada St Cloud kulli hay'adaad baa jira fara badan oo ka shaqeeya magaalada dadka Soomaalida la shaqeeya ama hay'adaadka ha noqdaan dad ajnabi ah ama kuwa Soomaalida ay maamulaan ba ha noqdaan bal waxaad iga warantaa bal magaalada guud ahaan dadka magaalada degan haddii aad ka warqabtid waa maxay waxyaalaha ugu faraha badan oo ay ka cawdaan in terms of ma xagga shaqooyinka ma xagga guryaha ma xagga dhexgelida bulshadan aan la deganayba waa maxay cabashada ugu badan oo la maqlo dadka magaalada degan ay ka cawdaan waa su'aal muhiim ah oo aadna u adag in laga jawaabo xaqadii la ogaado survey aan sameeyay oo anigu aan gaar u sameeyay oo aan ku raadiyay cabashooyinka Soomaalida gaar ahaan waxa ugu daran ma jirto laakiin qiyaasaadka markaan fiirino meelaha ay ku sheekaystaan iyo waxyaalaha ay aad ka cawdaan waa badan yihiin waxyaalaha Soomaalidu ay aad uga cawdaan magaalada haddaan tusaale u soo qaato oo dadkan waa dad soo galooti ah oo immigrant ah waxaan malaynayaa hadalka ugu dhow immigrant turjumaanka ugu dhow waa soo galooti
markaad magaalo deegaan ku cusub tahayna la qabsigiisu waa adag yahay, ha ahaado shaqo, ha ahaado waxbarasho, ha ahaado la qabsiga nolosha dhabta ah, ha ahaado xaqiiqada inaad ogaato wax oo ka jirta meesha magaalada ama dhulka meesha aad degantay. nin carab ah hadda ka hor ka qoray buug wuxuu yidhi America التي رأيته maraykanku waan soo kaan soo arkay. marka dadku waxyaalaha imaginationka iyo aanu ka haysanay maraykanka ama magaalooyinka markaan tegayno aan ka haysano oo inay aad noo soo dhaweynayso oo barwaaqo tahay oo meel walba aanu dabaalanayno iyo markii aad xaqiiqada dhabta aad la falgasho waa kala duwan yihiin. waxaa ka mid ah cabashooyinka horta waxaan haysta wax la yiraahdo language barrier, wadanka gaalada ay ku dhahaan language barrier. waa dhibka u weyn Soomaalida haysta waa xagga luqadda. qofkii hadduusan luqad garanayn waxaa ku adkaanaysa shaqadii inuu supervisorkiisii la communicate gareeyo, inuu form buuxsado, inuu shaqo raadsado, in waxyaalo badan oo arrintaas ku saabsan ayaa jira. horta wax kastana fura waxaa u ah qofkii horta inaad iskarataan oo isfahantaan. haddana qofkii marka dadkii shaqada laga raadinayay ama waxbarashada laga raadinayay ama noloshii xaggeedii loola tacaalayay ama guri laga kiraysanaya haddii isan fahmayn hadee dhib maba harinba, dhib ma harin. waa run shaqooyinka Soomaalidu aad bay uga cabataa, waxayna sheegtaan waxyaalaha kasoo ula kaca oo lagu sameeyo, laakiin xaqiiqadii markaan sheego wax case oo gooni ah oo aanu baarnay oo aanu soo helnay oo aanu raadinay ma jiro. laakiin xaqiiqadu waxay tahay inuu jiro, waa jiraa, laakiin wax la baaray male wax u istaagay ilaa hadduu arrinta inay gooni u baartana ma jiraan. marka waa ku